markaad maqashid ganacsi ama ganacsi furo runtii waxa ugu horeeya maskaxdaada kusoo degdegay muxuu noqonayaa maskaxdaada waxa kusoo degdegaya ima maqaaxi ima dukaan ima bakhaar ima transportation iyo gawaarida iyo waxyaabahaas run ahaantii ganacsigu waa isbedelay maanta xilligan aynu noolnahay waxaa jira boqolaal iyo kumanaan kun oo siyaabood oo kala duwan ood ganacsi u samayn doontid muuqaalkeena waxaan ku dul istaagi doonaa maxay kaaga baahan tahay inaad ganacsi samaysid maxay kaaga baahan tahay maxaa asaasiyaad u ah maxaa u ah hooyo u ah haddii aad rabtid inaad ganacsi bilowdid runtii way kala duwan tahay 12 sano ugu dambeeyay hadda waxaan ku soo guday jiray ganacsiyo kala duwan baan ayaan soo galay boqolaal iyo kun buug in ku dhow waan akhriyay oo ganacsiga ku saabsan insha Allah hadii la hayra muuqaalkan waxaan isugu soo geeyay 5 arrimood oo hooyo u ah hadii aad ganacsi rabtid inaad bilowdid aanna tahay inaad ogaatid haddaad ganacsi leedahayna aad ganacsigaaga ku iskiil gareyn kartid soo dhawaada saaxiibayaal waxaan bartan ku soo gudbinaa tabo iyo tusaalooyin aad ku hormarin doontid naftaada iyo noloshaada iyo dhaqaalahaaga hadii aad nagu cusub tahay farxad bay noo tahay inaad nagu soo biirtid sida YouTube ka soo xiganayo bishii hore waxay ahayd 50% dadka channelkan iyo Facebook daawaday may subscribe gareyn mayna follow gareyn hadda waan ka soo guurnay waxaan soo guurnay 45% waxaan rabnaa inaan hoos uga daadegno 40% gaarsiino nagu caawi inaan xaga gaarsiino markasta bataan dadka channelkeenan iyo Facebookeena ku xiran waa markasta oo ay badanayso mawaadiicda iyo muuqaalada wax ku oolka in bulshadeena ku soo kordhinayno nagala qayb qaado thank you marka ugu horeysa waxaan isweydiinaa waa maxaynu ku qeexaynaa ganacsi waa maxay ganacsi muxuu yahay ganacsi waa mushkilad aad xalinaysid oo u xalinaysid dadka kale meel kasto ay mushkilad jirto oo mushkiladda xalkeegii haysid waxaad ka dhex samayn kartaa ganacsigaas ima wuxuu noqon karaa service ima wuxuu noqon karaa product ama badeeco ima kamaladani horta la mushkilad bay xalinaysaa mushkiladaas oo ah inay muuqaaliga duubayso sidoo kale hadii aanan Allahumma sa'an mushkiladaas ayna jirin ama aanan u baahnayn kamaradaas ma jirteen marka waxaad u baahan tahay inaad jirtid mushkilad aad xalinaysid oo ganacsigaaga xalinay ima ganacsi buu noqon karaa ima service buu noqon karaa ima product buu noqon karaa ima waxyaabo kala duwan information iyo xog aad haysid buu noqon karaa inaad Allahumma sa'an ganacsiga dul dhistid marka waagi hore waxay ahayd inaad ganacsi dhistid inaad capital adag haysatid inaad lacag haysatid position aad meel kaliya ka samaysatid laakiin maanta adduunku waa isbedelay adduunki maanta digital buu u wareegay adduunki maanta waa tan soo gaadhin insan isku soo gaadhino inagoo adoo jooga Mareykan ama adoo jooga Australia ama adoo jooga adduunka meel kasta ka jooga wata si fudud Allah masax isku soo gaadhin taasna maxay fududeysay in ibn aadamku waxyaabo badan ay kala iibsan karayaan badeeco ay kala iibsan karayaan service bay kala iibsan karayaan waxay kala iibsan karayaan aqoon bay kala iibsan karayaan waxyaabo badan oo kala duwan ay bilaadinku Allah musta'an ay maanta kala iibsan karayaan iyadoo fududeynaysa teknolojiyada waagi hore markay ahayd inaad ganacsi bilowdid marka capital adag baad u baahanaysid laakiin maanta zero lacag ma baahanaysid waxaad u baahan tahay waqtigaaga waxaad u baahan tahay fikirkaaga waxaad u baahan tahay dadaalkaaga waxaad u baahan tahay Allah musta'an si aad u xalisid marka inaad raadisid marka ugu horeysa mushkilad inaad xalisid mushkiladda deetaad xalkeegii keentid xalkeegaas muxuu noqon karayaa product buu noqon karayaa service buu noqon karayaa waxyaabo kala duwan buu noqon karayaa marka waa inaad xal raadisaa markaad ganacsi sameynaysid ganacsiga fikradda ugu horeysa iyo ficilkaas raacini waxaad raacisaa eegtaa fikradan kritaas gareed oo dhaleec oo fikradan hadii shaqeyn weydo hadii fikradan insan noqon weydo hadii fikradaha kaligood Allah musta'an wax ma noqdaan midda kale markaad ganacsiga bilaabisid fikrad kaliya taaysan isku day inaad brainstorming samaysid ama maskaxdaada aad curisid raadi Allah musta'an product iyo service iyo wax aad mushkilad dadka aad ku xalin karaysid marka taa xalkaas oo heshid waxaad haysataa fikrad aad ganacsigaaga ku bilaabi lahayd arrinka labaad ee u baahan tahay waxa weeyaan isku dayin inaad ganacsiga wax weyn ku bilowdid ama wax weyn ku samaysid book baa jira la yiraahdo Lean Startup nin Eric Ries la yiraahdo qoray wuxuu kaga hadlayaa circle-kaas waxa weeyaan markaad rabtid inaad ganacsi bilowdid saddex darajoon baad u baahan tahay ama inaad ganacsi bilowdid ta koobaad inaad wixii samaysid oo dhistid oo wixii samaysid ta labaad inaad Allah musta'an wixii measure garaysid oo cabirtid ta saddexaad inaad wax ka baratid dan inaad circle-kaad ku celisid deeto Eric iyo teamkiisu waxay isku dayeen muddo sanad ay isku dayeen inay product-kooda perfect ka dhigaan application bay sameeyeen software as a service dan muddo waqti dheer bay ku qaadatay waqtigii dheeraa ka bacdi product-goodu waa ka socon waayay dan natiijadii iyo wixii ay ka barteen ayay ku bilaabeen ganacsi kale ganacsigooda kale ayaa shaqeeyay marka buugan buu qoray la yiraahdo Lean Startup 2000 wuxuu soo baxay 2010 oo buugaagta ugu saameynta badan leh markay noqoto entrepreneurship ama inaad ganacsi bilowdaan buuga inaad akhrisan ma nagula talinaya isku day inaad dhistid minimal viable product Allah musta'an ama product yar aad samaysid maybe productkaas 100 xabadood buu noqon karaa hadii aad rabtid inaad business kabayaashi waxyaabaha ku saabsan aad samaysid inaad wax yar gelisid Allah musta'an lacag badan iska gelin waa businesskan inuu shaqeyn doono alaabtan ka socon doonto waxaan oo dhan moogid isku day inaad minimal viable product aad soo qaadid minimal viable productkaas muxuu noqon karaa inta ugu yar hadii service tahay service kaaga tijaabi inay dadku u baahan yihiin suuq soo bandhig eeg
waxaan suuqa ma looga baahan yahay marka taas maxaad helaysaa natiijad helaysaa ama dataad helaysaa data markaad haysatidna war waxaas waa aragnimad ka haysataa waxaas ku dayday weeyaan marka taas samaysid waagii hore waxay ahayd inaad business plan qortid inaad beershad garaysid inaad product kan waxaysid inaad market research samaysid inaad kan samaysid laakiin maanta waxaas oo dhan ma baahnid $100 baad ku bilaabi kartaa ganacsi waxaad ku bilaabi kartaa from zero ardayda waxaan ku barnaa faca koray sidee baa loo sameeyaa e-commerce iyo dropshipping iyo print on demand adigoo ganacsigaad ku bilaabisid almost zero tahay waxaad u baahanaysid wax yar oo naqis ay tahay marka maanta way fududahay inaad ganacsi samaysid oo ganacsi aad dhistid imika hadda ganacsi samaystiraadid ganacsigaas uma baahnid inaad lacag badan iyo cash badan iyo wax badan aad gelisid waxaad u baahan tahay inaad waqti fiican aad gelisid oo waqtigaaga aad invest gelisid halkii aad lacagtaada ka maalgelinayd arrinka kale isna ku xiga markaad productgaaga aad soo qaadatid inaad isku daydid inaad value create garaysid valuegaas muxuu noqon karayaa contentkan imika ama muuqaalkan hadda soo create gareeyay waa value waa qiimo marka muuqaalaad create gareyn karaysaa allah mustacaan muuqaalada TikTok aad gelin karaysaa TikTok way fududahay maanta sida viral ku noqotid dad badan buu muuqaalkaagas gaari karaya dad badan baa alaabtaada iibsan karaya waxaa jira dad Mareykan jooga oo dhar ka iibsada Muqdisho iyo allah mustacaan Hargeysa iyo magaalooyinkeena Soomaaliyeed ka iibsada Nairobi ka iibsada ayaa jirta iyadoona ahayn meesha ay ka soo baxayaan maxaa keenaya laakiin dadkaasi content ka create gareynayaan ama brand ka sameeyeen ayaa keenaya in alaabtooda laga iibsado marka isku day inaad muuqaalo create garaysid oo content ka create garaysid oo value profile garaysid inaad productgaaga samaysid sheekan iga sheekeynaya gabadh baa jirta la yiraahdo Malyon waxay ku nooshahay aad baan xagan Malyon uga salaamaya Sudan bay ku nooshahay waxay samaysay productgaas wuxuu ahaa allah mustacaan waxay soo baratay jirka dadka iyo allah mustacaan nafaqooyinka iyo waxyaabahaas bay soo baratay dan product bay samaysay productgaas waxaa la yiraahdaa Melissa ayaa la yiraahdaa storekeyga oo tagi karaysaan then waxay samaysay productiyo face washka saliidaha timaha waxyaabahaas bay samaysay and then muddo sanad ka bacdiya maasha Allah ganacsigeyga oo big brand weyn inaad ka iibsataan alaabtidaasna aad baan rajaynayaa oo storekeyga booqataan haddaad Europe iyo Mareykan iyo meelaad joogtaan si degdeg ah inagu soo diraysaa marka Melissa within 1 year bay waxa ku dhistay brand aan caadi ahayn sababtay ku dhistay maxaa kamid ahayd social media audience fiican bay haysatay then social media audience-keyga bay la leverage gareysay Shopify store bay samaysatay Shopify store markay samaysatay alaabteeda TikTok ay ku xaysiinaysay dadkay barisay muhiimadda leedahay allah mustacaan inaad wajigaaga ilaalisid maanta ganacsigeyga maasha Allah ganacsi income fiican generate gareynay weeyaan inaad wax badan ka barataan aad baan rajaynayaa inaad storekeyga degtaan oo ka iibsataan productyadeena aad baan rajaynayaa haddii markaad rabtid marka taa aad samaysid waxaad u baahan tahay markii waagii hore waxay ka ahayd xaggii ay ka ahayd inaad businesskaaga aad uga soo samaysid dukaan ama waxyaabo kala duwan aad u soo kala samaysid hadda waxaad u baahan tahay allah mustacaan inaad online store u samaysid online storekaas platformyo kala duwan baa lagu sameeyaa sida Shopify WordPress Webflow meelo badan oo kala duwan baa lagu sameeyaa jirta marka meelahaas ayaad ku samayn karaysaa haddii garin online store loo sameeyo muuqaal dheer oo hal saac soconaya oo tutorial oo step by step ka hadlay sidee baa Shopify store loo sameeyaa sidee baa domainka loo iibsadaa sidee kale loo sameeyaa every step ayaa ku jira oo for free YouTube-ka Allah mustacaan xagan ka daawo muuqaalka daawo online store-kaaga xaga ka samayso waxaad u baahan tahay product aad u yar weeyaan product ayar geli meesha tan xaysiis ku samee arrinka kale isna ku xigeen u baahanaysa waxa weeyaan inaad social media marketing samaysid social media marketing inaad leaders heshid ama dad inay ganacsigaaga soo booqdaan sidee baad Allah mustacaan leaders ku heli karaysaa waa afar siyaabood dadku garanaya oo dadka ku garanaya inaad ka iibsid oo telefoonkaaga aad call to call samaysid oo dadka ku garanaya aad u sheegtid ganacsigaaga arrinka labaad ee u baahan tahay inaad samaysid waxa weeyaan inaad dadka social media kugu xiran aad la wadaagtid ganacsigaaga inaad samaysay inuu ganacsigaaga saayahay inaad dadka wargelisid oo dadku ganacsigaaga soo booqdaan si ay alaabtaada kaaga iibsadaan arrinka saddexaad ee u baahan tahay waxa weeyaan inaad social media marketing samaysid instead ay ka ahayd Allah mustacaan waagii hore TV xaysiis ku sameeyo ama meelo kale xaysiis ku sameeyo laakiin maanta way fududahay lacag yar oo niqis ayaad ku xayisiisan karaysaa alaabtaada dan dadku website-kaaga soo booqanaya website-kaaga markay soo booqdaan alaabtii iibsanayaan alaabtii markay iibsadaan waad u diraysaa allah mustacaan meeshoodii baad ku diraysaa marka khasaare badan maad gelin ee waxaad samaysay ganacsi deet waxaad ogaatay ganacsi the whole concept of system marka sababta maanta e-commerce uu u guuleysanaya waxa weeyaan ganacsiga adigoon waxba khasaarin ayaad ganacsigaaga tijaabinaysaa ganacsiga wax soconaya ma yahay ganacsiga waa sidee ganacsigan maxaan wax ka ogaanaya ganacsigan maxaan wax ka samaynaya dan every step intaa wixii ka dambeeya allah mustacaan waxaad natiijad helaysaa haddii aad u baahan tahay inaad baratid sida loo sameeyo e-commerce haddii aad u baahan tahay sida loo sameeyo ganacsi haddii aad u baahan tahay mindset iyo entrepreneurship haddii aad u baahan tahay waxaa jirta group la yiraahdo Club 100 oo usbuuc kasta soo galo oo ku baro teamka allah mustacaan xaga ku jira sidee baa freelancer loo noqdaa sidee baa agency loo dhisaa sidee baa e-commerce loo sameeyaa sidee baa print on demand all that business oo dhan allah mustacaan xagaas baan ku barnaa content creation su'aaliyo jawaabo jira section allah mustacaan kaga hadalno dhalinyaradu iyaga wada xiriiro oo communicate gareeya oo intii entrepreneurship u baahan intii wax kale u baahan groupkaas baan allah mustacaan kaga sheekaysanaa si toos ah allah mustacaan su'aalaha gadi soo weydiin karaysaa qofkii doonaya markaa inuu ganacsi sameeyo insha Allah hadii la ilaahay rajaynayo nagu soo biirsid dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhamaanteen waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qof ka helin
adigu qof u noqo. haddii aanad adigu qof ka helin adigu naftaada u noqo. haddaad leedahay muuqaalka waxbaad ka faa'iiday la wadaag asxaabtaada. waa inooyo muuqaalkan muuqaalka xiga. thank you.